Sheekh Maxamed Idriis oo ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed ee waaweyn ayaa ka hadlay arrinta hadalhaynta badan abuurtay ee ku saabsan soo xaadiridda shaqada ee shaqaalaha dowladda. Dhowaan waxaa la soo bandhigay tirada shaqaalaha sida joogtada ah waajibaadkooda u guta iyo kuwa iska maqan. Tiro kooban ay maalin ka hor soo bandhigtay dowladdu ayaa daaha ka qaaday in boqolkiiba 80 shaqaalaha dowladda aysan soo shaqo tagin oo mushaharka ay macno darro ku qaataan. Hadalhayn iyo falcelin bulsho oo xoog leh ayaa ka dhalatay arrintan, waxaana arrintaas si adag uga hadlay Sheekh Maxamed Idriis oo wareysigan siiyay TV-ga Shabeelle, wuxuuna dalbaday in dadkan maqan la daba galo oo la soo ogaado cidda qortay iyo tirada lacagta ay macno darrada ku qaateen si looga soo celiyo haddii ay suurtagal noqoto. Sheekh Maxamed Idriis ayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u diray fariin uu uga codsanayo inay arrintan degdeg wax uga qabtaan oo maalmaha soo socda la arko dad badan oo shaqada laga ruqseeyay iyo kuwa laga soo celiyay lacagihii ay iska qaadan jireen. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waxaan ka rajaynaynaa in shaqadan uu ku cibaadeysto sidii uu hadda ka hor noo sheegay. Dadkeennu waxay u baahan yihiin cadaalad iyo isla xisaabtan. Waxan oo kale dunida kama dhacaan, ayuu yiri. Sheekh Maxamed ayaa dul istaagay dhaliilaha dul hogganaya hay'adaha dowladda oo aad u badan, isagoo su'aal ka keenay sababta ay u samaysay ama ay u samaysan yihiin wasaaradaha qaar oo wax shaqo ah aan laga qabanin. Soomaaliya markii horeba 70 wasiir uma baahnayn, 30 wasaaradood uma baahnayn, 7 ilaa 10 wasaaradood baa ka badan. Dalkan ma qaadi karo dad la iska qorayo iyada oo shaqo loo qoro oon loo hayn, waxayna muujinaysaa in Soomaaliya aan dowladnimo laga rabin, ayuu hadalkiisa ku sii daray Sheekh Maxamed Idriis.